waan idin salaama dhammaan asxaabta ku xiran channelkeeni Mo Liban channel maanta waxaa halkan idin ku tusi doonaa sida aad ku samaysan lahayd split screen effect adigoo isticmaalaya Adobe Premiere Pro. Roll the intro. waa maxamed liibaan waxaan ahay content creator waxaan channelkaani ku soo upload gareeyaa cashar ku saabsan graphic design iyo filmmaking haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanayna inaad channelka subscribe garaado gambalelkan farato si aysan kuu gafin casharkan iyo casharo lamida oo soo socda waxaan idinka raali gelinayaa muddadii dheereed ee channelka ka maqnaay oo ah 2 bilood meelahaas oo kale oo mashquul jira awgiisa ku maqnaay laakiin hadda waa soo laabtay channelka Jimcoole ayaa u soo upload garin doonaa insha Allah duu ilaahay idmo cashirkana ugu horeeya jimcada soo socotan cashir jimcada ku sii xigtana cashir ay rajayna insha Allah inaan soo geliyo cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay split screen effect sida loo sameeyo waxaa jiro ama waxaa arkay youtubero badan khaasatan u badnaatay youtubero Soomaaliyeed oo aan u arkay split screen-ka inay u isticmaalayaan hab qaldan marka waxaa jeclaystay inaan maanta halkan ku soo gudbiyo split screen tutorial ama cashir ah sida split screen-ka weyga ugu saxan ama weyga ugu qurxan loo sameyn karo inaan halkan ku soo gudbiyo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin waxba yaa warka idin kugu soo dheereen Inakera software marka imaan Premiere Pro waxaa haysanaa laba muuqaal just waxaa hadda rabnaa in labada muuqaal aan sameeyno split screen muuqaalkan koowaad iyo muuqaalka labaad muuqaalkan koowaad hadda haddii aad ka qari isha waxaad arkaysaa kan hoose inuu muuqaal kale igu jiro okay marka step kood maxaa sameynaynaa muuqaalkan kor ayaa click siinayna effects control-ka ayaa tagaynaa Premiere Pro kadib waxaa sameynayaa muuqaalkan by default position-kiisa waa 960 iyo 540 waxaa sameynaynaa halkan ay u signaynaa bidixda marka halkaas u sakiyo qaybtan kor waxaa ka aragtaa line ku celinaya oo centerka ku sheegaya inuu meeshaas tahay halka centerka halkan ayaa ka signaysaa meelahaas camal geena okay marka inta sameeyo waxaa isku dayaa hadana ama waxaa soo qaadanaa effects-ka loo yaqaan crop marka effects-ka taga effects panel marka taga crop ayaa search gareynaya waa soo jiida video kor ayaa ku dulgeena marka ku dulgeeyo kadib waxaa igu rabaa ina hadana tago effects control-ka oo hadana adjust gareeyo effect-iga crop-ka aan ku soo daray cabirkiisa okay marka muuqaalkii effects ku daray crop-ka ku daray oo bacdeen waxa uu soo degaa effects control-ka qaybta crop-ka ayaa u soo degaya sida halkan kaga jeedid crop-ka waxa u baahanahay left-iga inaad ka soo yareeyo oo yareynaya ilaa waxa fiirinaa halkan guideline-ka center-ka iyo hagayo ilaa ay ka gaarayo oo yareena okay waa ka baxay intaas hay kadib waxaa sameynaa muuqaalkan kale oo hoose position-ka ugu yaalo iga qaldan yahay asagna kale ayaa siisanaya effects control-ka amaana position-kiisa ayaa adjust gareena halkan ayaa dhaha as simple as that waa inta siraful asla fiirino split screen qurux badan ayaa halkan ayaa noo dadka qaar waxay sameeyaan marka split screen-ka saan kale ay u sameeyaan feather edge-ga ay badiyaan tiradiisa kadib waxa dhacaya labada muuqaal waxay noqonayaan hab isku milin yahay oo kale habkaasna ma qurux badna waxa kula talinahay adiga hada sameysanays split screen inaad edge-ga 0 ka dhigtid qaabkaas ayaa qaab professional ah qurux badan cashirkeeni koobnay maanta halkan ay ku soo googayna waxaan rajaynayaa inaad cashirka wax badan ka faa'iideen tan iyo kulanka dambe cashirka xiga jimcaha soo socdo waxaa idin kaga tagay sidaas nabadgelyo Is that off expose?